toosa waxaan u guda galaynaa qeybaha hore ee barnaamijka waxaan ku eegaynaa shirka la filayo in muqdisho khamiista soo socotay ay ku yeeshaan golaha musharaxiinta kaas oo dhacay 19 bishan waxa uu shirkaas mid kadib markii ay aalada Zoom-ka shir ku yeesheen ra'iisul wasaaraha shanta hogaamiye goboleed ee dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa haddii alla idmo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan golaha shacabka habraaca doorashooyinka iyo miisaaniyadda loo qoondeeyay qabashada doorashooyinka Soomaaliya 2021 dhinaca kale rooble maanta wuxuu u kicitamay magaalada Qaahira ee caasimadda Masar kadib casuumad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax al-Siisi daawadaha ugu horeeyay qadka telefoonka barnaamijka ayaan soo dhaweynaya aragtida saaxiibada kala duwan ee barnaamijka ka qayb galay qadka ugu horeeya assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waan ku soo dhaweynayaa marka hore magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso barnaamijka ugu bilaab magacaygu waa Ibrahim Axmed Abrone jooga degmada Yaaqshid magaalada Muqdisho Cabdullaahi Cadaani aad oo maafin tahay sidoo kale shaqaaleysiintii ayaan mahadcelinaa oo fursadiisa in shacabka aan la hadlo waaya Ibrahim soo dhawow barnaamijka bal Muqdisho golahooda tashiga qaranka shir kale ay isugu imaanayaan magaalada madaxdii Muqdishona waa uu ka dhacayaa maxaa la filan karaa doorashooyinkiina way bilowdeen marka la eego Cabdullaahi waa maafin tahay shirka aan la filayo in maalinta khamiista uu qabsoomo waxaa la filayaa in isbedel badan uu imaado maxaa yeelay waxa dhacay waa aragnay aqalkii sare in magacyo badan malxiis oo kamid yahay in lala baxay marka doorashada in isbedel ku imaado aqalka hoose ay dhacin sidii aqalka sare musuqmaasuqa iyo min jeclaansiisi ay ku dhacday inay dhaceen oo wax cad ra'iisul wasaarahana oo ay soo saaraan golaha qaranka waa mahadsan tahay daawadaha koobaad oo yaaqsi jooga ayuu haa barnaamijka la qayb galay saaxiibada kale ayaan soo dhaweynayaa barnaamijka si toos ah waxaad uga daawanaysaan Shabelle TV waa madasha shacabka doorashooyinka iyo shirka Muqdisho ka dhacaya ee golahooda tashiga qaranka ayaan eegeynaa si looga duwo doorashadii aqalka sare qaabka u dhacday ayaa loo arinsanayaa doorashada golaha shacabka oo ayana mid xasaasi ah halo assalaamu calaykum calaykum salaam wa rahmatullahi walaal ku soo dhawow barnaamijka waan ka xumahay qadka telefoonka ayaa ka go'ay daawadahaasi qadadka kale iyo saaxiibada barnaamijka la qayb galaya ayaan u baaqayaa halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعبد الله علي كان هذا يدق مهودم cabdullaahi soo dhawow barnaamijka diyaar la socoto hore u gal وعندها عداني إن شاء الله وعن فينا شركة لقبنا إنه نسيت كيني دونه وعيو مرة دي لدح قلي دورة شدي وأقل كسر أنت بدن لصور دوبي شو دونه بها هذا مدو بدن بها كم بغض ملا غير كود إن كسدهم مثلنا waaya dad badan oo aan doonayn in lagu soo daro ay ka dhex muuqdaan oo umada hore wajiyadooda u dhibeen haddana waxaan leenahay haddii ay wixii hore oo aqalkii sare inta ugu badan la soo dhisay waxaan rajaynaynaa meel laga noqdo ay ma jirto wixii dhiman horaa lagu tallaabsaday noqon doontaa tallaabada la qaadayo marka waaya xilliga lagu soo beegay ka waran cabdullaahi iyo shirkan doorashooyinkii aqalka sare bilowday dhinaca kale Hirshabelle fursad ay haysatay ina ka waran ilaa hadda senator laguma soo xulin Jowhar Hirshabelle waxaa ragaadiyay mataqaanaa waa iska caddahay waxaa dareemaynaa qaab qabiil ayaa ragaadiyay Hirshabelle waayo waxaad ogtahay cali guudlaawe suu doonaba ku yimaadee waxaa laga madaxweyne mataqaanaa qoomiyadii ku heshiiyey ayaa qaar waxay yiraahdeen ma imaan karto goboladii gobol kamid ah marka meel aan madaxweyne imaan karin doorashadeedu dhib badan iyo cakirnaan badan ay la kulmaysaa waxaa kamid ah waxyaalahaas maqana ku xigeenkiisa hadalad inuu joogaa qof uma takoorto marka takoorid baa meesha xogaa ka muuqanaysa marka waxaan leeyahay Hirshabelle ahaan intay isugu tagtaan ali guudlaawe beledweyne soo qaadan maayo hadduu tago magaalada soo qaadan maayo hadduu tago dana idin kaga xiran
intaad ogolaataan inuu tago mataqaanaa reer hiiraan oo wax isla soo dhinta iyo dhista ayaan leenahay mataqaanaa nimanka la yiraahdo maasantahay cabdullaahi cali nuur oo muqdisho jooga ayuu ahaa gaaraan hodan waana saaxiibka madasha shacabka daawadaha xiga kale aan soo dhaweynayaa barnaamijka halo assalaamu calaykum عليكم السلام عداني واكو سلام أبو أدقي أنت ودقي سنة يسبا سلام الله هول ودينا ذا ذا waayahay magacayga ugu bilow barnaamijka marka hore in daali dhahaa dalka Sweden joogta walaalkay waayahay inta soo dhawow mar kale maamul goboleedyadii iyo madaxdii qaranka ayaa muqdisho ku ballamay doorashadii aqalka sare ayaa waa aqalkii hoose ama golaha shacabka iyo miisaanadii doorashooyinka laga shirayaa cashir maxaa laga baran karaa doorashooyinka aqalka sare ee bilowday iyo kuwa soo socda والله waxaa la yiri Soomaali walaalkay hore u mahmaaday waxay tiri mataqaanaagti waxay tiri soorta cuna doonay tiri sansankeeda naqaana waayahay hasiyeesho waxa waaye meeshan doorasho uma jeedna waxaan u jeednaa xulashee ilaahay hana badbaadi wax kale ma dhihi karo adkiya jiqada maqalka jirtay cadaaniyow qisadaasaan naysata maanta waayahay laakiin inta hadda waa loo diideen shirkan muhiimadda ugu weyn ee loo qabanayo muhiimadda ugu weyn ee la isugu imaanay hadda muqdisho waa in doorashadii golaha shacabka si sax ah loo wajahaa aqalkii sarena iyo qaabka ugu dhacday laga gudbaa soo inama habboona in dib loogu noqdo laga fiirsado waxa soo socda marmaa laga fiirsanaa ma goorta xaariye fandaalka la dhacaan maa laga fiirsanaa waa too late jaa wixii waa lagu jiraa waa wax lagu kala tegay la saxiixday qalinka isku dhacay ma goormaa maxaa laga gaaraa horta ii sheeg walaalkayo waxa laga gaaray ma ii sheegi kartaa maanta ma ogi haddii laakiin doorashooyinku waa kala duwan yihiin saddex qeybay ka kooban yihiin aqalkii sare golihii shacabka iyo madaxweynaha haddii aqalka sare qaladaad ay yimaadeen sooma habboon in golihii shacabka laga fakiro laga duwo oo si kale loo wajahayana ila ergaa wax dooranaysa markaan hinda haddii si fiican loo dhigi karo haye waaye ma waxaa ii sheegaysaa inay soo xulaan ka qayb galaan kuwan oo maxaa la dhihi jiray isku sheeg midowga musharaxiinta sheegayo ma iyagana dhinacooda may ka bursanayeen wax mase wax la yeeli doonaa ma ii sheegi karta waxaa looga fadhiyaa golihii wadatashiga qaranka iyo ra-iisul wasaarihii oo shirka isugu imaanaya muqdisho 19 Agoosto rajada shirkan ka waran ee doorashada ra-iisul wasaarahan asaga diyaaradii wuxuuba ka bixi lahayaa hadba wadan u buubo ka bixi lahayaa ma garanayo goorta wax qaban doonee waxay idin doorashooyinka u dhex taagnaado meel kasta wax ka dhacay inuu taagnayd ahayd runtii way ka hindahan marka maxaa ku baaqi lahayd amba xalka muxuu kula jiraa fariin ahaan adigoo dir lahayd aniga xalka wuxuu igula jiraa haddaan fariin diro waxa waaye waxaan oo dhan ha laga booda hadda iyo koow doorasho qof iyo cod aan aadno ilaaha deeqda baxshee qofkaan rabna aan doorana annaga aad baa umahadsan tahay waayahay hinda Sweden joogtay ahayd barnaamijkayga la qaybgalaysa aragtidaada xor baa u tahay barnaamijku waa madasha aragtida dadweynaha iyo telefoonada halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum salaam waa ku soo dhaweynayaa marka hore bal magacaaga iyo meesha aad naga soo wacayso magacaygu waa Maryam waxaan ka soo wacaa Sweden waayahay Maryam ku soo dhaweynayaa qofkii labaad ee Sweden igala soo xidhiidha aad baa u mahadsantihiin reer Sweden aragtidaada shirka muqdisho golaha wadatashiga qaran iyo doorashooyinka sidee u aragtaa doorashooyinka horta ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo laakiin waxa waaye waa doorasho waraabo badan reedaha uga dhagan yahay madaxweynuhu si waxyeelo ma yaqaan ilaa madaxweyne maalinta uu noqday hadda inta ka dhaxaysa halka sano hore hadii xoogaa laga reebo la xiiseynayay 3 sano waxa uu ahaa hilib waraab reedaha ka cunaha oo si alla soo waxyeelo uu la yahay marka bal ducadeynana waa ducadan ku kabayna inuu ilaahay tawfiiqda waafajiyo hadda doorasho cadaalad u dhacay uma jeedno waxa waaye doorasho la qaybsaday oo qof walba inta sida ari xara ku jira iyadu neefkay rabtana ay suuq geysanaydo maxaa tiraahday neefkay rabtana deysanaydo ay ku soo doorteen waay hadii wax yar laga reebo marka waxa waaye doorasho cadaalad meeshan ma tahay waa dhinaca kale shirka muqdisho madaxdii Soomaaliyeed gobol ilaa heer qaran ay isku imaanaya fariin maxaa u dir lahayd madaxda gubasha u taalo caasimada muqdisho fariin waxaan u diri lahaa ilaahay ha ka baqeen
qof walba waxay kitaabay gacanta saaratay qof walba dad shacab ah u dhaaratay ilaahay ha ka baqeen cadaaladu ha shaqeydo shacabku waxa ay rabaan ama anfaca way u jeedaan nin walba oo siyaasadda maanta ku jira wax yar hadii laga reebo oo ilmo yar yar oo markii ka bacdi dhashay hadii laga reebo mid kasta qalin dawladeed oo wax ku soo bartay wuxuu wax ku soo bartay bilaash wuxuu wax ku soo bartay dawlad wadan ay ka jirto kala dambeyn ah way u jeedaan dawladnimadu meesha looga baxo way yaqaan laakiin uma socdaan nin walba dantiisa iyo asaga wuxuu gacantiisa soo gali lahaa ama dhuuntiisa marsiilaha uu raadsanaya ilaahay ha ka baqeen yaan mucjisa ku dhicin ummadan isheediyay ku dhicin ilaahay inta ka baqaan cadaaladda ha ku shaqeeyo waa mahadsan tahay maryan oo iyana iswalna joogtay ahayd oo barnaamijka la qayb galaysay hooyadii Soomaaliyeed oo mahad celinayna iyo ka qaybgalkeeda barnaamijka saaxiibada kale iyo dooda doorashooyinka iyo barnaamijka wadashada shacabka halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh maalin wanaagsan ku soo dhaw madasha aan dhow yahay walaal waxaan ka soo wacay Kenya magacaaga igu bilow magacayga walaal waa Xalimo waayahay barnaamijka daal la socoto hore u gudagal doorashooyinkii dalka shirka muqdisho uga furmaya maamul goboleedyada iyo dawladii dhexe iyo gobolka banaadir sidee wax kula muuqdaan Faaduma walaal si wanaagsan ayuu ila muuqdaa rajada mar walba in la hagaajisada ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaya mar walba wax wanaagsan laga fila dalkeena iyo doorashooyinka ay u socdaan marka insha Allah wax wanaagsan aan ka filaynaa habka hadda wax u dhacayaan aniga firkadeeda hadaan ka hadlo si wanaagsan ayaan u arkaa insha Allah waan ku faraxsanahay wax wanaagsan aan ka filaynaa insha Allah waayahay dhinaca kale safarka Rooble iyo Hirshabelle marka la eego iyo doorashooyinka saameyn ma isku yeelan karaan Qaahiru Rasaaruhu aaday Hirshabelle aqalkiisa wali sooma dooran golihii shacabka loo sii socdaa iyo madaxweynihii doorashada sida arrimahaas ay kula muuqdaan walaal arrimahaas horta Hirshabelle waxay ku xiran tahay madaxweynahooda inuu hore wado oo maxay ahayd la wado madaxda sidii la mid u noqoto gobolaha kale marka gobol walba asagunba hore isku wadi karaa oo dalka aayihiisana la garab qaban karaa madaxda kale marka waxaan leeyahay ayagana horaha u socdaan insha Allah waa mahadsan tahay daawadahaasi Kenya jooga wuxuu qayb ka ahaa barnaamijka waanu mahad celinayaa yeeshee qaybaha dhaxtalkan soo gaarnay iyo farsamada waxaad la socotaan barnaamijka madasha shacabka TV-ga Shabeelle qeybaha dambe ayaynu soo gaaray dooda doorashooyinka iyo daawadayaasha barnaamijka ayaan aadayna markan halo assalaamu calaykum halo daawada ku soo dhaw barnaamijka marka hore waayahay waan ka xumahay qadkaasi waan isku maqlaanahay waxaan u gudbayaa cidda xigta ee barnaamijka diyaarka u ah inay igala qayb qaadato wuxuu ku saabsan yahay barnaamijka maanta guud ahaantii shirka muqdisho uga furmaya golaha wada tashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka halo assalaamu calaykum saaxiib oo jooga degmada gubadle xaafadada jiiro iigu cel magaca saaxiib waayahay teleefonkaaga ogaa daawadahaasi waan rajeynayaa inay salali doona saaxiibada kale ee barnaamijka igala qayb galaya ayaan gudagalayaa iyo dooda
toos waxaad nogala socotaan waa Shabeelle TV barnaamijka waa madasha shacabka aragtida dadweynaha qaybihii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan walaal ku soo dhaw barnaamijka magacaagii meesha ka soo hadlayso halo alo ku soo dhaw barnaamijka xagee ka soo hadlaysaa waayahay waxaan rajeynayaa qadka inuu hagaagi doono qaybihii dambena waa daawanaysaan barnaamijka madasha shacabka TV-ga caalamiga Shabeelle waa barnaamij maalinle ah dadweynaha ayaa ka qayb qaata ra'yigooda iyo markaasi xaaladaha taagan ayaynu uga hadalnaa barnaamijka maantana diradda waxaan saaraynaa arrimaha doorashooyinka shirka dhexmari doona madaxa goboleedyada kuwa dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir ee doorashada golaha shacabka iyo miisaaniyadeeda looga hadlayo iyo habraaca la soo saari doono ee doorashooyinka qofka ugu dambeeya ee barnaamijka halo assalaamu calaykum halo waayahay markaasi waayahay qofka ugu dambeeya ee barnaamijka ayaa nasiib u yeeshay inuu noo soo xidho halo assalaamu calaykum halo waayahay waan ka xumahay waan ismaqlanahay